أن ugu soo warbaahinta waxaad nooga warbixisaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanadaas. Si fiican. ciidamada Soomaaliland oo ilaa 15 kiiloomitir nooga jiray baa shalay magaalada galab ku soo guuray shalay galab qoray ilaa 4 kiiloomitir tahay bay ku soo guureen magaalada. Waan gartay. magaalada waxay ku soo degeen magaalada dhexdeedii bay soo galeen deegaankeedii iyo magaalada shacabka ugu qabteen ciidamadii soo qorsadeen qurac magaalada deegaankeeda ay qurac guwaarida geliyeen. Waan gartay. adigu wariyaasha deegaanka baameeshi waa la taashay baraweyn baa kacay deegaanka aaray naga magaalada odayaasha adigu wala sabir waayo weydiiyeen waxay raadeen arag wada hal meynaba deegaanka naynta ay hada sheegeen wax xayleeda oo ka dhaxmaray iyo wax ka dhaxeeyay digana ma jirin waxa ka dhaxaysay colaad iyo footin ba ka dhaxaysay waan gartay marka meeshii ay shalay soo degeen bay hadda degan yihiin miyaa mise way ka guureen marka ay waagu bariyay ayaa deegaanka dadkii joogay kacay magaalada ragii joogay waa kacay dadkii la qurtay magaalada meeshii ay ka joogeen deegaankeedii magaalada ciidankeedii difaac ka xidhay waxaa lagu yiri magaalada nagama soo geli kartaan ilaa 4 jeer ay magaalada sida loo arjay waan gartay hadii magaalada dadkeedii waa kacay ciidankiina waa kacay miyii meelaha magaalada wala ka saartay dadkii shacabka qorihiisii u qaatay ciidanka inay askari oo magaalada dhaxjara waa laga mamnuucay dadka kale waxay qaadeen waftiga soo socday la yiri inaa waftiga qofka carruur u tagay taraajirin qodobka wala ka qaatay waxaa kaloo la soo qaaday waftiga magaalada dhaxjara waxaa ku karin in la kulmi karin wargana ay ku karin waan gartay waftigaas iyaga Hargeysa oo horgolada horkacayaan Xirsitoorile iyo ninka la yiraahdo Waran Cade iyo rag badan oo ka soo jeeda beesha Hargeysa ay ku jiraan iminka halkay ku sugan yihiin annaga magaalada iyaga markii ay ku soo dhawaayeen ayaa ciidankii deegaanku kacay wadadii ay magaalada ka soo geli lahaayeen iyo soonaheedii baa la xidhay ciidamada Soomaaliland baa si kaga hortagay markii ay ogaadeen xaaladda deegaanka ka jirta shacabkii oo kacsan guud koowaad wadooyinkiiba ay gabayaan taageerooyinka ciidankii difaac kaga jira waana naga leexiyay magaalada meel aan dawladda baa la qardasay iyo la mariyay anaga naba ay soo marin waxayna u gudbeen xagga iyo degmada Taleex iyo nolosha degmada Taleex la kacdo waan gartay dhanka degmada Taleex iyada maxaad nooga sheegi kartaa magaalada Taleex ciidamada Soomaaliland baa adigu wala qabateen iyo calaamad weyn saaray laakiin dadkii shacabka ahaa iyo wariyaashii deegaanku aad loo kacay yahay shacabkii waa kacay yahay ciidamada ku diyaarsan meesha waa laga kacay yahay wax laga rabitaana iyo wax soo dhaweena iyo wax kulana ay cid la qaateen ma jirto ugu dambeyntii maxaa baaq u dir lahayd shacabka reer Khaatumo ee ku dhageystay shacabka reer Khaatumo waxaan u dirayaa inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan oo arkaan qabiilka ku soo duulay oo doonaya inuu qabiil lahaan ku maamulo deegaanadooda khatar ku qabsado haddaan deegaanka carreynayna waxaan go'aan ku qaadanay inaanu dagaalano degmada Taleexna odayaasha aan kala hadalnay sidaas ay yiraahdeen tuulooyinka nala mid ah waa nooca abaabula shirka laga jiraa godaalo carreey Taleexinta hadda ka warayo meelaha kala wada jiraya kaasina waxa uu ahaa Shaafici oo jaamac oo ku sugan degmada Carooley ee gobolka Sool aad baa u mahadsantahay oo ku salaamaya sidoo kale did